dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu ka ambabaxay degmada Qorolugud waxa uu tagay deegaanka Coodanle halkaasi waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kulan kula qaatay guud ahaan bulshada deegaanka Coodanle waxaana uu ka dhageystay warbixino kala duwan xisbiga saameeyna aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa waxaanu ku faraxsanahay imaadka noo timaadeen weligeey ilaa umayno hadalku waanu yaraynaynaa waftigan hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan la socday aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aanu idin leenahay waana sharafteen Allah idin sharfo mar labaadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne dadkan halkan jooga hadalladooda waad maqlaysay waxay yiraahdeen waa markii u horeysay ee aanu aragno oo meel fog ka soo go'ay inay yihiin baan u dareensanaa oo u arkayay socod baynu galaynaa aad iyo aad baad ummadana soo dhaweysay ree wuxuu ahaayeen Coodanlow aad iyo aad baad u mahadsantihiin laba fasal oo lagu kordhinay iskuulkan oo u diyaara iskuulkan 9 macallin baa ka dhiga macallimiintu way u dhantahay fasalladun baa loo kordhinaya fasalladana bishana la bilaabay hadii aan la yiraahdo waxaan halkan aynu dhagaxdhigaynaa goob xanaano xoolaad inkastoo ay jira mobile team koox wareegtay ay jirto haddana saldhigoodii ay dhigan lahayn talaagada iyo talaalka dawooyinka halkan dhagaxdhigaynaa madaxweyne waxaan doonayaa noo dhagax dhigto dadweynaha sharafta leh reer Coodanle aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa sida iyo qiimaha iyo qaanada aad noo soo dhaweyseen ilaahay waxaan ka baryaa idinka jisaasiyo milic baad taagan tihiin annaguna safar dheer baan wareegnay dalku wareegnaysan xoolaha lagu noqono dalka xaaladiisa kala duwan gobol walba iyo deegaan walba wuxuu qabo iyo wixii loo taray iyo wixii loo qabtay dareenka shacbiga inaan ogaano waajibka xilka nasaara weeye tanna ka mid bay taas oo kale tahay dareenkiina waan ogeysiiseen insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa dacwashooyinka iyo waxyaabaha badan aad tilmaanteen inaanu ka qaban karno aanu ka qabanno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu tagay deegaanka Balle Calanle ee degmadaasi Qorolugud dadweynaha Balle Calanle ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku amaanay horumarka ballaaran ee uu ka wado guud ahaan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland من إلهي ما كبرية إلهي نمعنا يا مدحونا ونسرية مدحنا ونسرية نبتقرية يا عيرمك إلهي يا نمهات كورنا إلهي ونسرك الرحمن وضب كاوي وضبنا وحاوي ومدحونا هي ضدك الله سبحانه دينت الإسلام كانت تكسر ويا تكسر دويريا سود هذا إلهي درت كسر هذا مدحونا ولا قيس كسر هذا سومالي لا نودك يا عيدك ويهدى الله أرجو ولا ما كسر هذا hadal badan ma oran wuxuu baan doonayaa madaxweynaha inaan u sheego madaxweyne reer Balle Calanle waxa weeyaan waxay ku faraxsan yihiin waxay ka mahadnaqayaan waxa aad qabatay ee wadankaadu qabatay waxaad qabatay wax kasta waa noqotay ku bushaareynaya arrimaha imika ka hadasheen ee ahaa MCH-ka iyo xaruntii xanaanada xoolaha iyo station police inuu madaxweynuhu idin ballan qaaday oo la idin dhisi doono ballan qaadana sida uu sheegay xildhibaanku halkan waxaan idin dhagax dhigaynaa wasaaradda xanaanada xooluhu xaruntii xanaanada xoolaha inaan idin dhagax dhigno oo si dhaqso insha Allah tacaala idinku bilaabo biyaha idinka ballan qaadaya balli in kasta hal leekaade si dhaqso ah inaan reer Balle Calanle halkan ugu keeno taasuna waa ballan waxa dadweynaha sharafta leh reer Balle Calanle aad iyo aad baan ku mahadinaynaa aniga waftigeena socda sida sharafta iyo qiimaha aad soo dhaweyseen aad baan idinka mahadcelinaynaa waana dhageysanay wixii odayaashii dadkii tiraadeen baahina waa sheegateen si sharaf leh u sheegateen halkan mas'uuliyiintii nala socotay way ka jawaabeen arrimaha qaarkood waxaan yeelaynaa insha Allah tacaala waxaan dalka u soconaa aan u maraynaa gobolada ugu wareeganaa inaan ogaano waxyaabaha ay qabaan dadka iyagu iyo waxay tirsanayaan iyo waxaan u qaban karnaa intaba hawlaha aad soo sheegteen iyo waxa aad tabateen insha Allah waxaan ka qaban doonaa wasaaradina waa maqlaysay hawsha qaabisana waxaan kala hadlaynaa ma jirto وأنا فلنا وأولا وحنا كسعسنا إن شاء الله تعالى وحنا كفلنا وأنا تكبر قادم بركة. مدرسة Balle Calanle iyo Coodanle mashaariic kala duwan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhagax dhigay waa Cabdisaaq Faarax Cabdilaahi Cabstar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Bro.